wuxuu noqonayaa topic ku saabsan recycle binka ayaynu wax ka dhigan doonaa. haddaba recycle binku haddaan yaro concept ka siiyo, waxaan arki doonaa recycle bin markiisa horeysa waxaan eegi doonaa recycle binka definitionkiisa. recycle bin muxuu yahay, definitionkiisa waa maxay. marka labaad waxaan eegi doonaa qaabka uu shaqeeyo, its works. ugu dambeynna waxaanu eegi doonaa bal how manage, sida loo maamulo iyo waxyaabahaas baynu eegi doonaa. markaa si fiican ha loola socdo. ugu horeyn haddaba waynu bilaabeynaa bilmasel. imika recycle binki waa kan. recycle binku wuxuu ka mid yahay waa application ama waa software computer kastaba ku jira. computer softwareadu laba ay u qaybsamaan. softwareada qaar baa jirta, waxaa jirta softwareadu laba ay u qaybsamaan. waxaa jirta software system software iyo baa jirta wax la yiraahdo application software baa kala jira. marka labadaas software midna softwareadu labadaas ay noqdaan. labadaasi waxay ka hadlaan inta badan waxay faraqeeyaan, way ka sheekeeyaan wax la yiraahdo inta badan waxay ka hadlaan system software iyo application software weeye. marka system software-ku inta badan marka laga hadlayo softwareada marka ama applicationska marka la qeybinayo laba weeye, system software iyo application software. system software-ku waa inta badan waa applicationada computerka ku yimaada, yacni waa applicationo aan ahayn kuwa lasoo install gareyn karo. waayo applicationada qaar waxa kala jira, qaarna waa qaar la install gareyn karo oo aad dib computerkaaga aad ugu shuban karayso markay kaa dhacaan. qaarna waa qaar computerkaaga weligaa si lagugu keenaya. imika bilmasal oo kale Facebook waa application. facebookgaasi wuxuu soo hoosgelayaa application software buu noqonayaa isagu, maadaama aynu softwarekii laba u qaybsamaya inuu niri system software iyo application software. Facebook wuxuu noqonayaa application software. system software-kuna waxaa tusaale u ah recycle binka. marka halkan maxaad ka fahmaysaa recycle binku inuu yahay in computerka lagu keenay markaad soo iibsanaysay computerkaaga recycle binku ku jiray, ma ahayn recycle binku waxaad kusoo shubatay ama qof kugu shubay maaha, waa wax computerka asliyan originally ugu jira. waad fahantay baan maranaya. okay, inta haddaynu ka nimaadno bal haddaba recycle binka imika aynu gallo gudihiisa. recycle binka maxaa yaala? marka recycle binku muxuu yahay haddaynu aan sharaxno. recycle binku waxa weeye waa waxa kuu dhil markaad shay saarayso computerkaaga, ama ha ahaado sawir, ama ha ahaado video, ama ha ahaado application. meesha wixii aad delete garayso meesha ku haysa ee ku qabata ayaa la yiraahdaa recycle bin. ma fahamtay? haddaba bal aynu recycle binka eegno imika. recycle binka aynu eegno gudihiisa. waynu furaynaa daaqada. wuu maran yahay imika. halkaa waxaad ku aragtaan this folder is empty. waxbaynu ku shubaynaa haddaba computerka, waxbaynu ku shubaynaa recycle binka gudihiisa. waay haddaba eeg, intaynaan hadda u gelin su-aasha labaad ee ah sidee baa loo maamulaa. marka ku rasa recycle binka imika folder cusub aad samaysanaysa. ugu tusaale ahaan folder cusub aan samaysananaa. folderka magac baan bixinanaa la yiraahdo tin. tusaale ahaan oo kale aynu bixinanaa tin oo kale. markaan u bixino intaa kadib markaan sameyno waxaan sameynaynaa wax la yiraahdo waxaa jirta laba su-aalood baa kala jira. mar baa jirta imika tintaas haddii aynu saarno oo aynu si toosa u saarno recycle binku tegaya. folderka imika aynu sameynay haddii aynu saarno oo delete garayno si toos u tegaya maxay recycle binka. tusaale ahaan oo kale right click baa taabanaynaa, waynu delete garaynaynaa. eega toos wuxuu u tegi doonaa recycle binka. haddaynu recycle binka imika soo furno waartaa soo ma yaallo imika, wuu yaallaa. bal haddaba ka noqo dib halkiisii dib ugu celi. restore dheh. restorekaasi waa inta badan waxa la yihahdaa markaad shayga dib u celinayso halkiisii dib u celinayso aad ka saarayso recycle binka. wuu inoo soo noqday waa kan. now tin halka ka eeg waa kaa tin ma aragtaan. haddaba waxaan doonaynaa recycle binka iminka markaynu folderka markaynu saarnay recycle binkiiba si toos u tegay. haddaba mar baa jirta recycle binka aad ku odhanayso recycle binka su-aal aad dhahayso folderka si toos iga saarba. yacni mar baa jirta recycle binka aadan u ogolaanaynin inuu geeyo maxay meesha la yiraahdo recycle binka. tusaalahaan oo kale
iminka waxaan taabanaynaa meel la yidhaahdo meel baynu ka maamulaynaa bilmasaloo kale waxaanu ka maamulaynaa recycle binka teganaa dabeetana iminka su-aashii labaad oo imanayna oo ah sidee buu u shaqeeyo iyo sida loo maamulo waan israacinayna labada way wada socdaan marka propertieska tegaynaa propertieska saddex option buu ina kala siiyey oo ah kaa hore waxaa la yidhahdaa custom size don kana waa option kale oo la yidhahdo don't move files to recycle bin kana waa display delete confirmation dialog hadda ma fahamteen ka hore muxuu qabtaa ka hore wuxuu qabtaa ee la yidhahdo select setting of select ee ah custom size wuxuu qabtaa shaqadiisu waxaa weeye in shayga la delete gareeyo inuu si toosa u tago maxay recycle binka waa qodob kana muxuu qabtaa kan labaadna muxuu qabtaa kan labaadna wuxuu qabtaa ee ah don't move files to recycle binka wuxuu qabtaa shayga aad delete garayso ha geenin maxay recycle binka ee si toosa u saar hadda eeg kana wuxuu kan hoosena wuxuu qabtaa shaqadiisu waxaa weeye inuu shaygan su-aal ku weydiiyo ah ma doonaysaa inaad maxay recycle binka shaygan geyso markaas intaasay ku kala duwanaanayaan waay haddaba bal iminka now iminka kaa labaad baynu eegaynaa kaa labaadi bal wuxuu odhanayaa oo inoo odhan doonaa inaan recycle binka shayga la geynin ee yacni inaan shaygii recycle inuu su-aalina weydiiyo noqonaysa cafwan inuu su-aalina weydiiyo odhanaysa xaggaad doonaysaa shaygan inaad geyso ma waxaad doonaysaa recycle binka inaad saarto mise inaad saarto balaynu eegno kaasaynu tagta saaranaa dabeetana waxaan leenahay apply dabeetana waxaan leenahay okay way dabeetana recycle binka waa soo hubinanaa recycle binka inuu baray way dabeetana waxaanu taabanaynaa computerkeena shortcutka shift delete dabeetana maarta maxaa qoran maxaad aragtaan iminka muxuu inoo soo qoray su-aashu ina weydiiyey waa maxay bal akhriya su-aashu ina weydiiyey waxaa weeye wuxuu yidhi are you sure you wanna to permanent delete this folder xaqiiqdii ma waxaad doonaysaa adigu inaad si permanently aad u saarto folderkan marka iminka haddii aynu dhahno yes folderkaa magaciisa la yidhaahdo tin magaciisa la yidhaahdo si toosa ayuu uga baxayaa computerkaba si toos u baxaya oo recycle binka tegi maayo waa haddii aanu yesna dhahno ma fahamteen waka marka don't move shaqadaasu qabanaya ma fahamteen shaqadaasu qabanaya haddaynu imika dhahno yes automatically uu ka baxay meesha folderkii samaynaa fahmin waad fahamteen baan u malaynayaa waad fahamteen sooma folderkaa kale ee la yidhahdo cali baynu eegaynaa isagana cali folderkaasaynu tusaale marka kii hore muxuu qabanayey kii la odhanayey marka kaa shaqadiisa waad fahamteen baan malanayaa kaa shaqadiisa don't move files to recycle bin kaa shaqadu qabto waad fahamteen oo ah inaan shayga recycle binka la geyn ee si toosa loo saaro oo loo dhiggareeyo ee aanu tegin oo su-aashayna weydiiyo ayaa la yidhahdaa ka waay markaan doonayna inaan wax su-aalayna weydiina kaa horan custom dhahayna marka customkaas waa maxay shaygii marka aadan recycle binka aad tegayso aad geynayso laakiin aan wax su-aala ku weydiinayn baa la yidhahdaa hadda ma fahamteen maxaa inoo soo haray kan la yidhaahdo displayga baa inoo soo haraya displayga inoo soo haray displayga isagna shaqadiisa wuxuu noqonayaa display baan isagna tegaynaa waxaan leenahay apply waxaan leenahay okay bal hadda eega haddaba displayna eega haddaba display shift delete baan taabananaa isagna muxuu ina weydiiyey eega wuxuu yidhi are you sure you wanted to move this folder kan to recycle bin kana muxuu ina weydiiyey ma doonaysaa inaad folderkan aad geyso recycle binkaaga marka halkaa maxaad ka fahmaysaa in shayga la yidhaahdo optionka saddexaad ee maxaya optionka saddexaad ah display delete confirmation dialog inuu yahay ka kuu sheegaya in shaygan ama recycle binka la geeyo ama inaan la geyn يعني سؤال بكويدينيا سؤال بكوردقة يا ويا مبت سؤال كويدينيا ما واحد دوني سألنا تسكر كبير كيسو لكن كاستم سايزكم حقوق الدنيا كاستم سايزكم
isaga wax shuruuda kugu xidhi maayo oo su-aal ku weydiin maayo ee si toos ayuunbaad u geynaysaa. waad fahamtay baan intaa u malaynaya. marka iminka haddaynu haddaynu dhahno iminka haddaynu shift delete taabano oo aynu yes dhahno oo ah revision to this folderkan waxaan leeyahay hadda bimasalo kale yani aynu dhahno ama bimasalo kale wuxuuna weydiinayaa waka are you sure to move this folder to the recycle bin? ma waxaad doonaysaa shaygan haddaynu dhahno yes iminka oo waxaan doonayaa anigu saaxiibow inaan recycle folderkan inaan recycle binka geeyo baan doonayaa. yes wuxuu tagayaa recycle binka waa ka ma aragtaan recycle binka toos u tagay. waka ma fahamteen? waka rawad fahamteen baan maanayaa. marka inahaas ayuu inta badan recycle binku ka hadlaa. marka recycle binku waa maxay? recycle binku inta badan wuxuu ku sheekeeyaa waa meel ama waa application ku haynaya wixii aad iska saarto ee delete garayso habka loo maamulo ee loo ogolaanayo inaad waxa ama aad waxna waa diiday oo iminka shay markaanan doonin inaanan recycle binka geynin ma geynayo, laakiin haddaan doonayo inaan recycle binka geeyo waanan geynaya. marka labadaa optionsba ama labadaa awoodoodba waad leedahay. meelaha laga maamulo ee aad markaad doonayso inaad shaygii aad saarto iyo inaad recycle binka geyso inaad geyn halkaad ka maamulaysaana waa halkaa propertieska tegaysaa dabeetana optionadaas ayaad ka dooranaysaa marba kii qaciya. marka custom size-ku muxuu yahay? custom size-ku haddaynu mar dambe ku celino, custom size-ku waa marka aadan doonayn inaad shayga markaad doonayso inaad shaygii aad recycle binka geynaysay ama sawirkii aad geynaysay ama folderkii aad geynaysay recycle binka aanu wax shuruuda kugu xidhin ee uu si toosa maxay u tago recycle binka. ka labaad option ka labaadna waa markaadan recycle binka geynayn ee uu si toosa u baxayo. at the same time qodobka saddexaad ee optionka saddexaadna wuxuu ka hadlayaa marka aad shaygii aad saartay uu su-aal ku weydiinayaa ah ma recycle binka aad geynaysaa ha ama maya. marka taa su-aal buu ina weydiiyey. marka qodobkaa saddexaad iyo kaa koowaad ayaad moodaa inay isku soo dhodhow yihiin oo bilcagsi ay isku yihiin marka waad fahanteen baan malaynayaa. tusaalihina si fiican baad u fahanteen. inahaas ayaa aynu maanta kusoo gabagabaynaynaa. waad mahadsantihiin.